magacaygu waa Shariif Maxamed Weheliye ka tirsan ganacsatada jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa gaar ahaan magaalada Johannesburg. waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha Universal iyo maamulkiinaba iyo idaacadda dhammaan. aragtidayda markaan u gudbo waxa weeye horta aragtidaydu waxay tahay waxa ay ummadda dhan aragtidoodu tahay oo ah in waddankan doorasho loo helo ay is afgartaan ragga shirsan maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha iyo gobolka Banaadir talada Soomaaliyeed maanta iyagu nasiibka u helay inay maaragtay waqti u helaan ama nasiibka u helay inay go'aan ka gaaraan. waxa aan u jeedinayaa waxay tahay waxa ummadda Soomaaliyeed ay wada sugayso ah doorashada in doorashadaas la iskuna afgarto doorasho xaqna ah xalaalna ah ay dhacdo. xaq iyo xalaal marka la leeyahay waxa uu laga wadaa sida loo badan yahay mooyaane hadee boqolkiiba boqol wax xaqa meesha cidina kama keeni karto. marka waxaan leeyahay marka koobaad waa in ay is afgartaan ku heshiiyaan doorashada iyo qaabkii u dhici lahayd aysan dhicin wax ummadda Soomaaliyeed niyad jabiya. markaan u gudbo maamul goboleedyada kaliya aan wax ka iraahdo maamul goboleedyada anagu jaaliyadana halkaan joognaa wararana soo gaara inta badan la leeyahay maaragtay ragga qaar luga jiiday. marka walaalayaal waxaan idin leeyahay nin kasta oo maanta waxaan sharci ahayn dadka ama dad ku taageera ama qof ku taageera isagana bariiq qabsanaysa. marka waxa loo baahan yahay nidaamku waxa uu yahay in la taageero in aad isku meel uga soo jeesataan oo go'aan mid qaadataan oo ummadda Soomaaliyeed ee hadda murugaysan aad ka farxisaan. haddaad isfahamtaan ummaddu waa ku farxaysaa, haddaad iska soo horjeesataan ummaddu waa idinku wareertay. marka waxaan idin leeyahay si fiican oo ummaddu ay fahmi karto oo dhagaha ummadda u roon in aad maaragtay go'aamo dhaxalgala oo ummaddan waqtiga adag ka gudbiya inaad soo saartaan ayaan rajaynayaa. marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dagaal iyo balaayo iyo waxba la sheegayaa. marka dagaalkaas cid danaynaysa ma jirto, dadka horinaya waxaan leeyahay dib uga istaaga, dagaal waxba ku gaari maysaan. waxa loo baahan yahay in la isna fahmo hawsha doorashada oo ra'iisul wasaaruhu uu hogaaminayana jaaniskiisa la siiyo oo lagu daba kaco. haddaan doorashadii asaga loo xil saaray haddana aan jaaniskii uu ku qabalahay aan loo ogolayn wax ka suuragelaya ma jiraan. marka waxa weeye waa shimbirayow heesa haddii hawshii xarigii dhinacna laga haysto la leeyahay xariga wax ku soo xir oo hawshii qabo dhinacna looga dhigan yahay.